والله قواعد خير بنا بركة يجلس صارع نوني أو صارع آير لولا لينا صور من نقاد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي بان إدين سلامية دمان شعبوينها كسو قيب قلي مانتا سودوينتي ده هالكن ليجو سميه فنانينتا أبوانينتا محنقول ورياشة تيفية دلنيرة أصحابتا حاجيجا دمان وحنا دين الله واد محدثنتهين Soomaalidu waxay tiraahdaa niman dad lahayni waa niman dal lahayn dad idinkan dad magac idin ku leeyahay idinka halka ay gaarsiiyay idinka la'aantiin halkana maanta ma joogeen Safiya Tusmana ma ahaadeen gurmadka ay gasheen 2021 ma ilaawi karo anigu ma ahi marti deegaankan u dhashay dambal baan ku dhashay deegaan maxaan ku dhadaa degmada dambal waa wadankaygii waa caasimadeydii reer Soomaali galbeed baan ka tirsanahay gobolkaygu weeyaan magaaladaydii weeyaan ma ihi maaragtay qof meel kale timid oo lagu soo dhaweeyay wadankayga baa lagu soo dhaweeyay aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadcelinayaa thank you marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed cidii muuqayga iyo maqalkayga taqaana anigoo magacayga iyo magaca fanaanada Soomaaliyeed ku hadlaya yaa waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo walaashay Safiya Tusma iyo saygeeda Cabdullaahi waana ku faraxsanahay inay maanta jijigay maadaan waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqdaan qoys noloshooda isku dhameeysta waxaan ugu ducaynayaa ducada rasuulka kaleey salaatu wasalaam barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum fi khair soo dhawaada lillahi bismillah hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan horta waxaan ku sugannahay garoonka diyaaraduhu ka haadaan ama ay soo caga dhigtaan ee garaad wiilwaal ee caasimadda looga arrimiyo deegaanka Soomaaliyeed ee magaalada Jigjiga waxaan maanta laba soo dhaweynood oo halkan ka qabsoomay ayaan idin la socodsiinaya sida idin muuqata waxaan halkan ku soo dhaweynay fanaanadeena qaaliga ee Soomaaliyeed ee qiimaha badan ee sharafta badan Safiya Yoonis Safiya Tusmo oo aan idinku cusbayn magaceeda iyo muuqaalkeeduba oo ay soo dhaweeyeen ugu horeyn bahda waa dhinacayagii marka dhinacaas bahda fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka ee deegaanka Soomaalida qayb kamida waliba qaybtiida iyo dhaqanka oo ah qaybta ugu wanaagsan ee laga dheehdo Soomaalinimada iyo caadadooda laguna maamuuso munaasabadaha qaaliga ee sidan oo kala soo dhaweynta kalena waa soo dhaweyntii ay ku kulmeen toddobaadkan sayidna la wada soconay Safiya Tusmo iyo saygeedu waxa meherkoodu ka dhacay caasimadda gobolka Awdal ee Boorama halkaasi oo baraha bulshada si wanaagsan aad uga socoteen in Safiya Tusmo hidaha iyo dhaqanka qiimaha ugu sareeyo oo wali lagu arag inta ku hadasha afka Soomaaliga ee ama una saf sheegata Soomaalida meherka ugu qaalisanaa adduunka ka dhaca ayaa u qabsoomay iyadii saygeeda oo garab taagan nasiib wanaagna ku soo dhaweeyay magaalada Jigjiga sidoo kale asxaabta ehelada qaraabada iyo mataqaanaa dhammaan inta nasiibka u yeelatay ee ka soo qayb gashay oo halkani qaban qaabadeeda iskugu timiday oo qaybo ugu badan ay waliba ka yimaadeen magaalada Boorama Somaliland oo ay ka mid tahay waayo bas Soomaaliya Jigjiga ma ku dayday tii anigu ba hebla kaliya ma oranayo laakiin dad ka mid ah ka soo qayb galaan ceeb maaha waa laga jari waayahay marka dadkii caasimadda ku noolaa deegaanka Soomaalida intii nasiibka iyo hoodadaba u yeelatay ayaa ka soo qayb gashay nasiib wanaag waxa kale oo ah inay Safiya Tusmo iyo saygeeda Cabdullaahi Yuusuf ay ku kulmeen
caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waa arrin cajiiba mar kale bal hambaliyada iyo sacabkiina ay maqashiya munaasabadu ma aha arooskii laakiin waxay noqotay fantasiyihii iyo dalbaadagii qaybtii hordhaca ahayd la isma gaadhin waxaan ilaahay ka baryaynaa dhammaanteen iyo in kaloo fara badanba inay ka qayb gali doonaan munaasabadaha iska soo daba dhacaya waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii soo qaban qaabisay gabdho iyo wiilal halkan saxaafadda madaxa bannaan ee deegaanka ku sugan iyo cid kasta warbaahin intii ka soo qayb gashay ayaguna inagula sugan boqorkiiba boqorada horta waa ilmaabtay taana ku darsada qorshaha habre wadaagood ayaa isaguna halkan Fuad wad garanaysaan wiilkan quruxda badan leh Fuad aniguna abtibaan oo ahay Fuad Alamire aniga laftigaygu family baan ahay Cabdilaahi Yusuf iyo Safiyaba kolka laga yimaado tafanka iyo takale guud ba laga yimaado marka dhammaan inta qaraabada iyo ehelada iyo dhammaan inteenoo dhanba aad baad u mahadsantiin ka soo qaybgalkiinu waa mid wanaagsan oo muhiima Safiyana waxaan leenahay iyo Cabdilaahiba ku soo dhawaada soo dhaweyntan quruxda badan ee leedin hibeeyay lama iloobi karo saxaafadii deegaankuna caashiya bay nagala jooga aad iyo aad mar kale bal sacabkiiyo hambaliyada ay maqashiya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Roode Cabdiraxmaan Ismaan Roode halgan waxaan ahay dhalinyarta deegaanka ee magaalada Jigjiga ku nool hadana maanta u dalbaadagaysa soo dhaweynta Safiya iyo seegayga Cabdilaahi lamaanaha qarniga ahna iskeelka jabiyay hadaan si kaftama nagimka rag waxaan ku war balboos baan ku inaad 200 keento mooyaan qiimo talacay marka Safiya waxaan leeyahay welcome Jigjiga waa magaaladaadii qalbi furan gacmo furan anagoo ku hadlay afkii gabdhaheena Jigjiga oo kugu soo dhaweynaa gacmo furan marka waxaan leeyahay yar baan leeyahay waxaan leeyahay garbaayigu tahaynaan maanta gaadiya oo gaf wareegay oo garba sarka meel dhigta ninkiiga garab hadla maanta iga gardaran habli samaroon siciida bintida lahaa boqoraya waxay dhalaan wiila laga baqa ninkaas boqol geelayo barqabkiisi wadi buntuqa noo dhiibin hablaha iyaga ma baayacaan markii xafladda hadalay sheegay Safiyay ma isa soo gaanay sidii geed xaraara qaba malayga wada gabaday sidii galarkii cadda haddana ku gabaya tirin garigu ogow markii xafladda hadalay sheegay dheemanay gorgorka gabayada tirsha garbahayga degay sidii goodi iyo abees baan galgalanaya sidii gaabano libaax baan u gaaraya haddana gool waxaan ka dhalin garigu ogow waan soo gaabinaya waxaan leeyahay caruuskana wargeesi oo geesi dhalay wargeesi oo waabaha looma garami jirin gartuugooyana gidaar looma eegi jirin hablahatii quruxsan buu ka dhex qaadan jiray war cabdi oo wadna gadiiban ka rabnaa allah ini barakeeyo wiil iyo caano waxaan leeyahay gurigiina laga daahtiray waswaas kalgacaylka waa qalgara maxibada ku doogsan noqdo ila diirka